السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنيقا منصر عبدي علي ومركلة إيه برنامج يديني إدير قلنتا وحان جعل هذا الكيجين أنكو باللابو شيكير أو كفتن هذا كهر بانين إساقو غاريغا سي حاولي قوة ضيا باوحا أركي أسكري وددو استاجيي مركاسو كوداهي محاد غاريغا سي حاولي قوة ضيسا ninka wuxuu ku dhahay hal mar banaanka ma usoo bixi karaya askarisan kula hadlo markaasuu ku dhahay ha soo deg banaanka usoo bax banaanka markuu usoo baxay wuxuu ku dhahay gaariga waxaa ila saaran xaaskeyga iyo sodohdeeda marka ninka wax badan waxaa dhibtay sodohdiisa markay guriga wada joogaan aad bay u dhibtay marka wuxuu dhahay ilaahay maqaadirtiisa labadoodii ba isku dhacay oo dhahay marka waxaan ku heshiinay in sodohdii loo celiyo gurigeedii waxaan gaariga u dejinayaa booda inaysan go'aankooda isbedelin si aan guriga iyo u geeyo aan u soo laabto ninkii askariga intuu yaabay buu wuxuu ku dhahay aniga waxa ku siinayaa ee sheeg wadada anaa ku sii furayo soo bax anaa kula kaxeenayo waraa wanaagsan maanta walaalayaal waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo rumey riyadaada qof walba oo dunida saaran ha ahaado ilmo yar ama qof weyn ha ahaado qof taajir ama faqiir rag iyo dumarba wuxuu alla subxaanahu wa tacaala ina siiyey hibooyin afkaar caqliyaal aynu nolosheena wax badan uga bedeli kareenno walaalayaal alla subxaanahu wa tacaala marka laga yimaado waajibka uu ina saaray wuxuu ina siiyey riyooyin aynu u baahannahay inaynu rumeyno riyooyinkaasoo wax badan ka bedelaya mustaqbalkeenna mustaqbalka dalkeenna iyo mustaqbalka diinteenna waana halka ay ka timid markuu qofku dhasho in la yiraahdo noqo mid dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa anfaca laakiin markuu qofku soo yaro weynaado bilaabo u hanqal taago inuu rumeeyo riyadiisa u qalab qaato siduu qof u noqon lahaa siduu wuxuu jecel yahay uga rumeyn lahaa ayaa waxa uu la kulmaa caqabadooyin aad u fara badan wuxuu la kulmaa guuldarooyin wuxuu la kulmaa dharbaaxooyin uga yimaado nolosha qeybaheeda kala duwan ilaa ugu dambeyn uu noqdo mid ku qanca waxay nolosha mar walbaba u soo taagto waxaad arki doontaa dad ku dhahaya wuxuu arkayaa qofkii dad ku dhahaya adiga heer ma gaari karaysid ma noqon karaysid waxa aad rabto ma tihid qof hibo u leh waxa uu sameynayo waxaad arkaysaa qof ku dhahaya shahaado ma haysatid shaqada noocani ah ama riyada noocani ah waxay u baahan tahay shahaado heer sare ah waxaad arkaysaa qof ku dhahayo maadada aad baranayso waa maado dad badan ay barteen shaqana laguma helayo waxaad arkaysaa qof ku dhahayo businesskan aad rabto ama ganacsigan aad rabto inaad bilowdo waa ganacsi u baahan lacag badan adiga familkiina iyo awowyaasha xataa markii la fiiriyo weligiin maydan ahayn dad xataa hanti soo yeeshay sidee ku bilaabi doontaa laakiin hadalkooda ha u dhaga nuglaanin ha noqonin qof dhegaysta cadowga ereyada afkooda ka soo baxaya noqo qof alla subxaanahu wa tacaala ku kalsoonaado allihii shalay riyadan qalbigaaga geliyey allihii maanta kugu garab taagan oo maanta qof walbaba ku garab taagan riyadiis inuu rumeeyo ayaa beritana kuu rumeynaya riyadaada laakiin adiga ma noqon kartaa qof ku kalsoon ereyada alla subxaanahu wa tacaala qof ku kalsoon ilaahay wuxuu ku ilhaamiyey ilaahay wuxuu qalbigiisa geliyey nebi yuusuf calayhi assalaam wuxuu ahaa nebi alla subxaanahu wa tacaala uu ku manaystay nebinimo nebi yuusuf walaalayaal aabbihiis nebi yacquub nebi isxaaq iyo nebi ibraahim aabbihiis nebi yuusuf aabbihiis awowgiis koowaad iyo awowgiisa labaadba waxay soo ahaayeen ambiyo haddana walaalayaal nebi yuusuf wuxuu soo maray dhibaatooyin aad u fara badan nebi yuusuf walaalayaal walaalihii isaga la dhashay ayaa ceel ku riday nebi yuusuf walaalayaal wuxuu soo maray addoonnimo wuxuu galay xabsi uusan wax qalada uusan ku mutaysanin waxaasoo dhanna waxay ka bilaabatay markuu walaalihiis u sheegay riyadii alla subxaanahu wa tacaala uu qalbigiisa geliyey riyadaasoo ahayd inay u sujuudeen 11 xidig qoraxda iyo bisha waa lagugu coleyn doonaa riyadaada qof walba oo isku dayo inuu heer gaaro waa laga hor istaagayaa qof walba oo maanta isku dayo inuu riyadiisa rumeeyo waa la fara fiiqayaa dadku mar walbaba ma soo dhaweeyaan wax cusub dadku mar walbaba way ka baqaan saaxiibkood markuu rabo inuu heer gaaro maanta markaad isku daydo inaad heer gaadho
dadkii saaxiibada ahaa ma rabaan inaad ka dhex baxdo, way ku coleynayaan, way kaa soo horjeesanayaan, way ku farafiiqayaan, way iska kaa soocayaan, way ku qabiileynayaan mararka qaarkood. laakiin ha noqonin qof u dhaga nuglaado waxay sheegayaan. dadku waxaa la yidhaahdaa geedba geedka uu ka mira macaan yahay waa looga dhagax tuur badan yahay. haddaba qof walba oo ku colaadiya waa lagu caynayaa, laakiin waxaasoo dhan ka dhigo wax ku sii dhiirogeliya si aad u rumayso riyadaada. walaalayaal, waxaa la yidhahdaa Englishku waxay dhahaan if you will not reach your destiny if you respond to any dog that barks to you. heerka ama meesha aad rabto inaad gaadho ma gaari doontid haddii aad mar walbaba ka falceliso ay walba oo kugu qayliya. marka noqo qof focused ah, u jeedo barta uu u socdo ay u cabiran tahay, waqti aanan ku lumanin cadowgiisa, waqti aanan ku lumanin dadka ku qancay nolosha sida ay tahay. waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo sheeko yar. hadda ka hor nin baa waxa uu lahaa baqal, aad buu u jeclaa, hanti kale ma uusan haysanin. maalin maalmaha ka mid ayaa baqashii waxaa oga dhex dhacday god. markii ay godka oga dhex dhacday ninka waa uu naxay, waa uu yaabay, maxaa samayn doontaa? wuu isku dayay si walba suu baqasho godka oga soo saari lahaa. hantina keligeed ayuu ka lahaa. waa uu soo baxay, wuxuu u wacay niman kale, waa la isku dayay in godka laga soo saaro, waa laga soo saari waaye. go-aan marka ninka wuxuu ku gaaro, wuxuu baqasheeda maadaama aan jeclahay ma rabo inay meesha ku rafaado, ku gaajooto, waan ku duugeynaa godka. badeelkii ayuu soo qaatay, wuxuu bilaabay inuu caro ku shubo. waxa uu bilaabay inuu caradii uu mar walbaba si tartiib tartiib ah ugu shubo. laakiin mar walbaba uu badeelka uu carada ku gediyo godka, bahashana dhabarkeeda ay ku daadato si ay u duugto, baqashu way isruxaysay, caradan dhulka ayay ku daadanaysay, iyadoo markaa ay ka dhiganaysay meel ay ku soo istaagto si ay kor ugu soo baxdo. ugu dambeynna godkiina waa buuxsamay, baqashiina banaanka ayay soo istaagtay. walaalayaal, haddii aad cadowgaada ereyada afkooda ka soo baxaya iyaga aad u isticmaal sida adiga horumarkaa u gaari lahayd, waxaa lama huraan ah inaad heerkii alla subxaanahu wa tacaala uu niyadaada geliye aad gaari doonto. waxay yidhaahdaan noqo mid dhagax walba lagu soo tuuro ku dhista daar, laakiin ha noqonin mid dhagax walba lagu soo tuuro dadka ku celiya. waxaa marka walaalayaal ugu dambeyn iyo gunaanudka idinku dhiirigelinayaa inaad rumaysaan riyadiina. si walba oo xaaladdu ay tahay, lacag la-aan baa ku hayn karaysa, waa lagaa soo horjeysanayaa, cadow fara badan baa yeelanaysaa, laakiin noqo mid riyadiisa qalbigiisa mar walbaba rumeeya. qalbigaaga u noolaaw, ha u noolaanin dadka siday rabaan, u noolaaw sida qalbigaaga u doonayo. hada wabillahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh.